Belarus gobolka Mogilev tuulada Ryazno. Kaniisadda Saint Casimir. Sidan ayay kaniisadu uga eegi jirtay wejiga. Waxaa jirta daaqad ka koraysa albaabka laga soo galo oo cidhiidhi ah oo sareeya. Aan ka eegno gudaha dhismaha. Waa kan daaqadda ka sarreysa albaabka. Waxaa la arki karaa in daaqad lagu jabiyey gidaarka. Waxay si aan naxariis lahayn u jabiyeen labankii. In ka badan intii loo baahnaa ayaa geesta ka dhacday. Waxaan ku qasbanay in aan toosiyo daaqadda furan. Laakiin maxaad u samaynaysaa daaqad yar oo dheeraad ah? Daaqadda ayaa loo baahnaa sababtoo ah waxay sameeyeen qayb ka mid ah albaabka hore. Derbigan gudaha ee kaniisadda ayaa la sameeyey mar dambe. Fiiri isku dhaafka gidaarada dhexdooda. Dhanka bidix waxaa ku yaal darbiga weyn ee macbudka. Dhanka midig waxaa ku yaal qayb la sameeyey markii dambe. Iyada oo leh meelo 3 xagal ah oo qariib ah. Qaybtu waxay ka samaysan tahay leban kale. Dhuxusha ayaa aad uga sii daran. Dhuumo tolmo aan sinayn oo u dhexeeya lebanada. Waxaan ku tusayaa dhanka kale. Tolitaanka u dhexeeya gidaarka iyo qaybta dambe ee lagu daray ayaa si cad u muuqata. Ma jiraan wax ku xidha lebanka u dhexeeya gidaarda. Safka lebanku isma dhigmaan. Qaybtan ayaa lagu daray mar dambe. Caadi ahaan waxaa jira balakoon loogu talagalay kooxda heesaga kaniisadda oo ka koraysa albaabka laga soo galo. Markii hore ma jirin balakoon ama heeso kaniisad. Markii kaniisadan la dhisay, waxaa jirtay jawi diiran oo aan dhaxan lahayn. Laakiin markaas cimiladu way isbedeshay oo waxay noqotay qabow. Dhismaha ayaa loo baahday in la kululeeyo. Shoolad bir ah ayaa la dhigay halkan. Waxay jabiyeen meel gidaarka ku taal si ay ugu rakibaan shoolad silindrigal ah. Uma eka fikradda naqshadeeyaha. Tani waa carriyeyn lagu qasbay si aanay u barafoobin. Dusha sare waa kanaalka qiiqa. Waa waxaan suurtagal ahayn in lagu noolaado Belarus iyadoo aan kuleyl lahayn. Dhammaan dhismayaasha la dago iyo kuwa dadweynaha waa in la kululeeyaa. Laakiin markii hore ma jirin baahi loo qabo kuleyl. Kadibna masiibo cimilada ayaa dhacday. Dhismihii waxaa qaaday culimadii. Waxay rakibeen shoolad, waxay samaysteen balakoon kooxdii hobolada, waxayna jabiyeen daaqad. Adeegyada kaniisadda ayaa bilaabay in la qabto. Laakiin markii hore dhismahani wuxuu lahaa ujeedo kale. Dhismaha waxaa loo dhisay hawl gaar ah oo la taaban karo.